السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولاalaha aqyaarta asxaabta aan jecelahay channelkeena waani wacyigelin ku xiran walaalayaal soo dhawaada walaalahay cusub aan soo dhaweynaya waxaan leeyahay soo dhawaada kan gacan furan ku soo dhawaada waa maasantiin waxaan ku maasantiin subscribe-kiina aqyaar asxaabi maanta waxaan rabaa inaan ma aragtaa aan ka hadlo ama mowduucan aan ku dhameystiro videogan aan ka duubay waxaan ku dhameystiri doonaa insha Allah videogii ku horeeyay aan kaga hadlay maxay toole ilmaha inaan xor laga dhigin ama waalidiinta ilmaha xorta ka dhigo caqabadaha ay la kulmi karaan oo aan waliba waxaan ku soo qaatay waxay videogaasi cidii hore aan u daawan qisooyin doora oo ilmo ma aragtaa xor laga dhigay ee ma aragtaa ku dhacday sidoo kale waxa aan marinayna ama ugu dambeyntii aan ka hadlay waxay tahay qiso anigan shakhsiyan idin la hadlayo ilmahayga aan kala kulmay ama ilmahayga channel ay daawanayeen ay kala kulmeen waan haysan waliba de channel iska caadiyo normal iyo ciyaalku ay iska daawadaan ama waxyaabo fani ciyaalka uga sheekeeyo balse asaas ahayn arrin argagax leh aan kala kulanay halkaas aan horta videoga marinay insha Allah halkii baan ka sii wadi doonaa ciyaalka saan sheegay kartoonkaas ama ma aragtaa bombalaha city nin bombalaayo sanka qalin ugu jiro ilma ay ka wadaan baambarna u xiran yahay waxaan ku leeyahay madaxana koofida baaskilka ugu jirto weeyaan macni waa idin tilmaamaya si aad uga digtoonataan ubadkiina hadii ay macni fiirsadaan aad uga joojisaan hadeer waqti iyo fursad ayaad haysataan ma aragtaa kartoonku waa saas horta dad waaweyn baana tarjumayo dee ma aragtaa bombalayaasha city waxaan waa bombale laakiin dad waaweyn baa u hadlayo ma malaysan kartaa dadkaasi waxa weeyaan lesbian weeyaan waxa weeyaan dadkan ma aragtaa qowmuluud ka sameeya weeyaan wallaahi billaahi tullahi baan idin sheegay argagaxa aan argagaxay waxaan ku leeyahay sida aan noqday maalintii aan arkay ama maalintii aan intaan u dhisi dhabagale aan ogaado waxyaabahan ay gudbinayaan waxay ula jeedaan ma malaysan kartiin xaaladdeeda sii noqotay ilaa haddeer argagaxi waa hayaa hadda wallaahi hadda ugu badnaan 6-7 bilood ka soo wareegatay intaynan daawan marka waxa uu kalif waxay tahay mowduucana maanta ka hadla number 1 taasa ka ah oo anigana la kulmay marka waxa hada adiga la kulantid oo adiga ku taabato iyo hadii lagaaga waramo laba kala xanuun badan yihiin ama way kala dareen duwan yihiin marka lesbian bay gudbinayeen ilmaha waxay bariyeen inay nin iyo naag inay laba nin isguursadaan inay iska normali tahay gay iyo wax daran bay ma aragtaa ilmaha bariyeen anigana waxa aan ku ogaado ugu badan waxay tahay aanu waliba aad isku amaanimay laakiin ugu wanaagsan dabagalka ilmaha waxa ay daawanayaan aan hadane waxaan maqmaqlaa ciyaalka yarka oo iyaga isku leh gay waa yaaba argagax waxaan dhawr waxaan ilmaha xagee ka keeneen ilmahan adiga waxa ka mid maqal cid kale ka mid maqlaan meel may tagaan war xagee ka keenay waxaan sida waxaan iskuulka laga ka hadla waan yaab laakiin waxaan weydiiyo aniga iyaga saaxiib isku dhawaanay waxa ay war waxaan xagee ka keentay xagee ka baratay hadii laygu yiri bal maxaad ka dhihi hadii laygu yiri baan idin bal maxaa ka dhihi lahaydeen kartoonkaas waxaas lagaga hadlaayo koodi iyo hebelow kale meesha lagu sheegay waa waxaas inta badan ka hadlo kulli kama hadlaan laakiin fiidiyoyaasha qaar kaga hadlaan والله حالتي مقياس كرتين ساعة نقضي مقياس كرتين ساعة دي شاقب ساعة أرقحي وحان دريم وحي تهي ضيع وين إنا نسمي وحان دريم ما أنا تصبحي تهي فدي ابتلاد إلا هاي وحان إلمان لغو فصحي إلمان إن حرت لقديقو بل إلمي أنسا أدب الجوجني أنسا محيط أن تليفون فرتك الصارين وأن تليفون كفصحين ويسان تليفون ميركل اللي آذن با إلها إن كل داريي ساعة قيدة نوع عسا أما مارك تارقن كنوع عسا لوغو دبين ياي مما ليسان kartaa ibtilada ay leedahay marka ilmaha inta telefoon siisid oo waliba banaanka aad fasaxid waliba banaanada su'aad soo wax walbo iyo wixii xun iyo wixii laga argagaxo oo uusan lahayn aqliga iyo aragnimo saa inay sheegay uu istiga celiyo soo ilmihi ku dhicimayo soo bari ka maal noqon may sida uu geed ilmahan inuu ilmahaagi ahaa ilma kale qalaado aadan garaneyn soo bari ka maal markaas loomi may sida ilmi dulmi may sida dhimi sid kana shaydaan baa la tagay shaydaan lama tagin adiga shaydaanka ugu weyn ku noqdaan runta idin sheegaya shaydaanka ugu weyn waxa ku noqday waxay tahay waalidka ilmaha tarbiyada noocaas aan difaac ka gelin marka aniga maxaan sameeyay marka aniga ilmahaygi waxa aan gabi ahaanba stop gareeyay janaalkaas dib dambe inay u daawadaan waxayna igu qaadatay muddo inay joojiyaan mar walba waxa la isku dayay xitaa in la iga xado laakiin waxa ilaahay mahadiisa ayaga inaan kala laaluusho micni waxaan ka wadaa in ayagi ma aragtaa midi markuu aan dhaho hebelow waxa hadii la daawanayo ii soo sheeg markuu ii soo sheegan aan abaalmarin siiyo taa waxay ma aragtaa
sabab igu noqoto waxay tahay in ilmihii joojiyaan maxaa yeelay kan ama abaalmarin baan siinayaa ama waan ammaanayaa haddaan labadaas mid u sameeyo intii buu rabaa waxa ciyaal weyaan marka haddii uu kii kala daawanay wuu soo sheegayaa kanne intii buu arkayaa kan intii loo sameeya lagu sameeyo isleey kii kale wuu soo sheegayaa taa marka waxa ay ii noqotay waxay tahay fursad inaan ama maaragtaa qeyb iiga qaadatay waxay tahay inaan maaragtaa joojino gebi ahaanba kanalkaas oo ilmihii dib dambe aysan u daawan ilaa yoomina haadaana ma daawadaan ilaahay baan ku mahadsan waxyaabaha ay daawadaan oo dhanne janalada ay daawadaan oo dhanne hal la socda hal mid aanan garanaynin ma jirto sababtana waxay tahay awalkeygaba waan social media waxaan ka qabaa argagax anoo argagaxi ka qabaan haddana amarkaas iyo qisadaas yaab kale aan kala kulmay marka walaalayaalow ilmaheena aan ogaano ilmaheena aan la soconno ilmahayaynan xor ka dhigin xalka ugu dambeeya muxuu yahay sidaan idiin sheegay videoga hore waxaa idin dhahay xalka maaragtay sidaan aniga u arko aan idiin sheegaya ilmaha haddii social media lagu fasaxo ama telefoon loo iibiyo ilmo badan oo hadda qurbaha ku nool horta waxaaba ma aragtaa nagu qasbay in telefoon xilli hore la siiyo waxay tahay ilmayaasha kale gaaladoodii tarbiyadooda aan dan laga lahayn baa la arkaya ay arkayaan ayagana waxay ku leeyihiin igad haddii aad diidido ama markaa si kale u maareysid ama si kale aad uga farsamaysid waxa weeyaan ilmihii waxaa dhici karto caqligiisa ma qaybsamay inuu maaragtaa magaalada kugu dacweeya ama u arka inay cadaadinaysid marka ilmihii marka maxaa sameynaysaa duruufahaasa kugu hareeraysan telefoonkaa u iibisay bilaahi calaykum iskuullada qaar hadda aniga ilmihayga iskuulka dhigtaan waxaa laga mamnuuca waxay tahay cunug inuusan telefoon iskuulka usoo qaadan karin haddii loo gada xataa marka ilmahaaga teleefonka markuu baxaayo fartaha ka saarin guriga markuu joogo si limit waa halkaa idiin sheegaya guriga marka uu joogo si limit ee u sii waxyaabaha uu daawanayo ilmahaaga la soco fiiri taas waa xalka aniga aan u arko xalka ugu fiican oo ilmahaaga aad waxyaabaha uu fiirsanayo ama waxyaabaha loo gudbinayo aad kula socon kartid ilmihii kale aan teleefon loo iibinina miya bilaahi calaykum iPad intaa farta ka saartaan ama teleefanadiina gacanta u dhiibtaan ama TV-ga aad ma aragtaa maxay aad u daartaan shibha ka dhihino oo dibay dambe ha u fiirinin oo danihiina ku mashquulin dana idinkaga muhiimsan ma jira anigu mana garanayo ilmaha yarkaa tarbiyadooda marka ilmihiina fiiriya janalada ee daawanayaan la socda wixii wanaagsan ku dhiirigeliya wixii xunne wixii wanaagsan waliba idinku ku dhiirigelinaya la daawada si ay wanaag ugu arkaan wixii xunne ka joojiyo oo si walba iyo si aad u adeegsataanba waxa weeyaan kala dagaalama la fari see ku ogaan kartaa ina ilmahaaga wax xun daawanaya waxna sidoo waa ina waqti gelisaayad fiirisaayad la socotaayad la fariisataayad la daawataayad saa ku ogaan kartaa Soomaan laakiin haddii aadan ba ihtimaam siinin de weliga aadan ogaan maysid saasoo kale aan kugu dhacayso ilmahaaga birri baa waxay ayagana kula istaagayaan hooyo maxay tole wiilnays aroosan waa iska caadi gabarnays guursadaan waa iska caadi diinta islaamka waa saan diin noocan ay jirto intay ka baxday saddex ilaah waa iska waxba maahan waxyaabo kale de adiga aadan jeclaysanin waa ogaay waalid walba islaam de maraba ilmihiis inay xumaadaan laakiin sidee waxaa keenaysa waxay tahay inuusan u arkin khatarta arrintan ay leedahay ama uu ku baraarugsaneen walaalayaal waxaan jeclahay inay fariintaas idin soo gaartay waxaan jeclahay inaad fahanteen waxaan jeclahay message-kaasi إن شاء الله هدوء عجب قليو إن أصحابتنا لو ذاك دونتان بإذن الله الباري أما هدينا لو ذاك حتى إن الإسكود يدونتان ساحب بدين موضوعي داس أتكلا هذا شاني أوبد كيودا وصاحب بدن براروسني مشاغي يعني وصاحب بدن براروسنا ديوانهم بلينا إنه حلينا مبروك وحلينا هاي معركتهم بليو إلهي سيدين هاي دو كوجودو أنت عن معركة سيدينو كلا هن إلهي سيدينو كلا كتيجا يعني لين هاي والد كمعركة علمي سيد ضياعي بنو ضياع واركاي ضياعي ديس أساق هدو دوني ula jeedin laakiin micnaheedu waa dayac ilmaha in la daba joogo oo waalidkaasna waxaan leenahay ilmaha daba joog waxa ay daawanayaan la soco waxa ay daawanayaan maxay heeto dabagal dheer ku samee meeshaan inta ku fasaxday ilmihi hadhiin birin waxaan rabaa inuu ka noqdo ilmo wanaagsan oo maxay heeto aqoontiisa iyo dhaqankiisa iyo everything ay yihiin dhaqan islaami aqoonti islaam taas ma dhaceyso taas waxay kaaga baahan tahay wixii juhdi gelisid ilmihi ala socotid waxyaabaha ay daawanayaan mar badan oo ku soo celinayaan la soco ilmahaaga waxa ay talaabinka qaadayaan la soco ha cadaadku mali laakiin si saaxiibtinimo leh ilmahaaga wax uga dhaadhici tala guud u sii mar walba waanada iska daa ilmaha ilaahay baa yiri فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وانا وحي أنفعها مؤمنين تا مركا والمي يركان ويبقى نقوى نقصي حق جيران نكوى بواوين حقا وحلقا بين عقلي لأنه عقلي جاني أن ما ركتا دعضا بينا وحاحوني سبقا القرن لك أيوه انتي مالي ويا رقني ما مالي أنا قوح بدنا عن لقرني مركا
waxaan idin dhihi lahaa walaalayaalow ilmaheena aan insha allah ku dadaalno intii aan ubad haysano sidaan fiidiyoga horna ku sheegay haddana aan ku celinay u duceynayna biidnillahi albaari ilaahay waxaan ku rajeynaa xitaa ubad saalixa oo kheyr qabo wanaagsan oo baariyaal ee walad usoo duceeyo saalixa ilaahay uga dhigo inuu ilaahay raxmaanka awooda sarasa iskale wax walbana saa awooday inuu ilaahay ku irsaaqo intiin haysatana waxaan ilaahay nooga rajeynaa xitaa inuu ilaahay noo xifdiyo noo ilaaliyo tarbiyadooda nala garab galo amaanadaas culus ilaahayna saarana ilaahay waxaan kaga rajeynaa waxay tahay inaa ilaahay naga dhigo kuwa ma aragtaa guto oo meesha loogu talagala dhigo insha allah ilaa idinkiis mawduuc intaasan kusoo موضوع حقي إن شاء الله أنت كل مدون وحد كذا تجي وحيتها إذنكو وما صدقوا شدين سيدا إلى سعتان سلامتي سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.